1920 markii daraawiish jabtay gobolladii bariga khaasaan dhulka carama jeerteen waxa xukumi jiray boqorkii loo oran jiray Allah naxariistay boqor Cismaan nin boqor waxa oo isagu maamul ballaaran oo weyn buu lahaa talyaaniga heshiis buu kala galay xeebaha iyo calanka talyaaniga laga taagay nin kale isaguna ay walaalahayn Maadar Ali Yusuf Kanadiid loo oran jirayna qobiyay degay sanad talyaanigu heshiis la galo calanka talyaaniga xagga ka taagnaa talyaanigu ma soo galin dhulka daraawiish ma jabtay oo ma la maqlay talyaaniga hubkiisii ciidankiisii uu soo kaxaysay koonfur buu ka soo dhaqaaqay barigaana uu yimid wuxuu isdhiiba way dagaalameen boqor Cismaan iyo askar buu lahaa ciidan buu lahaa oo badan way dagaalameen xoog ayaa lagu qabsaday hobiyana xoog buu ku qabsaday oo Yusuf Kanadiid kolka waxa dhaxlay inankiisii Ali Yusuf Ali Yusuf ka boqortooyada hobiyo xukumayay waxa ku xigeen u ahaa Umar Samatar nin loo oran jiray Allahu naxariistay Umar Samatar maadaama uu ku xigeenadii ahaa wuxuu ahaa dadkii dagaalamay ee talyaaniga la dagaalamay suuna dhulkooda u qabsan ay u dagaal galay 4 sanadood uu dagaal kula jiray talyaaniga halka ku warjoogo aakhirkii 1927 ayaa ciidan xoog loo talyaani soo weeraray meesha la yiraahdo Garloo Gube oo deegaanka Soomaalida xagga bariga ku taala ayuu dagaal xun ka dhacay dagaalka waa laga guuleystay dagaalka waxa kale oo ku dhintay abaanduulihii ciidamada daraawiishta oo markaa noolaa oo dagaalka galay oo loo oran jiray Abshir Dhoore Xasan Abshir Dhoore markaa harar buu ka tagay harar buu iska fadhiyay harar buu maqlay jihaadkii buu galay halka buu ku dhintay Umar Samatarna kuma dhimanay dadkii ka soo baxay buu haayo xaggan Xeelad Silaas u yimid maadaama Xeelad Silaas iyo talyaanigu ay colahaayeen xabashida talyaanigu colaad baa dhaxtaala dalka colaadii dhaxtaala ka faa'iideysanay u badan oo qaatay halkan buu ka yimid oo maaragtay soo magan galay ninka Umar Samatar sida aad u arkaysid ayaa kolka harar buu fadhin jiray markii dambe dagaalkii labaad ee dunida markuu dhacay talyaanigu Itoobiya qabsaday Umar Samatarna uu ka baxay ilaa baa talyaaniga dibadda u dhoofay talyaaniga markii la jabiyay ayuu soo noqday markii dambe harar buu ku dhintay haddaba ninkaas nin Soomaaliya oo Soomaalinimadii dalkiisa u dagaalamay Soomaaliya taariikhda waxaan ka soo wariyay Allah uu naxariistay oo Jaamac Umar Ciise oo ahaa odaygii taariikhda daraawiishta ku takhasusay gabay sayidka soo wariyay qoray ee buugiisa caan ka yihiin buug kale badan oo qoray taariikhda Umar Samatar odayga baan ka soo wariyay waxaan iska sameysanayaa ma ninka Soomaaliga ee Talyaaniga uu la dagaalamay ee Soomaali ka xoreynay dan u leeyahay xaggan u yimid Xeelad Silaas ayuu Xeelad Silaas wuxuu yiri Itoobiya buu malaha dagaal kolka talyaanigu dhulka soo galayna uu la dagaalamay darajo wuxuu siiyay la yiraahdo Ijaazmaaj darajooyin uu bixin jiray Xeelad Silaas boqortooyada oo dadka ku laaluushi jiray ninka maaragtay wixii soo dhan wada siiyay dadkiisa u duleeyana tawsariisu siin jiray marka Umar Samatar Ijaazmaaj baa laga dhigay magaalada Dirnaba dariiqa Cinema Empire dhaqan kamera maaragtay ka hormar ma ka dhinaca kamera kaabu ku qornaan jiray weligiiba oo xasaas u bixiyay Ijaazmaaj Umar Samatar waxa kale oo loo bixiyay Umar Samatar مسكيتك وين يا أدي سوابه أنور مسجد ليراه مركاتو كويالا هرتيسة مدرسة عربية الدين تلاقو برت يكون اللي سو عان أو راكتي يمكن واحد اللي يقول مدرسة دي ماشي ولا قرب اللي يقول مدرسة ده أنا بورك كويالا مجا مدرسة ده أيها عمر سمتر تمرت بيت سكول كي عمر سمتر يكون قرنا مجا أنا خلقها وحوجي ذا مركان نكاس يوتيوبيان بوها كون سجال بقولي التضبيط سديتك مركي جب هذه محمد سياد برا لا دجالمي أي بعدين حاجة يوتيوبي هو بقاطعين لا دجالميان تضبيط سديتك أيون نين حبش ياهو يا توبان هيرال يا وحقوق قري تاريخ دينا وانا يا حلقي نكمل عيسين وانا يا وحقوق قري أولي عمر سمتر وحوها نين جيسيا ويوتيوبيان هذا بالك هذا سومالي دينا ورا ما هي سبعة war kama ayamba waxa jiray school sare oo lagu magacaabo Umar Samatar oo ku yaala magaalada Gaalkacyo ee Puntland meel kale oo lagu magacaabo ninka ma jirto kolka waxaan u leeyahay Soomaaliya sooyaalkaaga
ilaasho haddii kala dee cadawgaagii baa qaadanaya waxaagii baa sheeganaya bilaa taariikh baa noqonaysa taariikhduna waa waxa la isku dilo kolka taana waa sheeko dheeroo maqaalkaa baan qoro qofkii qoraalkaa doodoona uu ka heli karaa internetka